kadib markii maanta ay ahayd markii ay dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday inay heshiis dhanka badda oo difaaca iyo iskaashiga dhanka difaaca iyo dhaqaalaha ay la gashay dowladda waddanka Turkiga ayaa durbaba waxa heegan buuxa la geliyay ciidamada badda waddanka Turkiga iyadoo amar buuxa la siiyay inay durbaba dhaqaaqaan guutooyin kamid ah ciidamada ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Turkiga iyadoo amarka lagu siiyay inay gaaraan durbaba xeebaha dalka Soomaaliya halkaasoo maanta ay si rasmi ah ugu wareejiyeen inay ammaankooda ilaaliyaan dowladda federaaliga ee Soomaaliya kadib markii kulan degdeg ah la isugu yeeray maalnimadii maanta ahayd golaha wasiirada dhanka kalena xildhibaanada Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa xeerkaasi ansixiyay heshiiskan dowladda Soomaaliya ee la gashay dhanka difaaca ee badaha Soomaaliya ayaa wuxuu wax ka bedeli doonaa waxyaabo fara badan iyadoo sidoo kale heshiiskan lagu sheegay inuusan ahayn heshiis kaliya dhanka difaaca balse ay dowladda Turkiga ay ka caawin doonto dowladda federaaliga ee Soomaaliya tababarida ciidamada badda iyo qalabeyntooda Soomaaliya ayaa guul weyn u aragta heshiiskan ay la gashay Turkiga ee dhanka difaaca iyadoo maantaba baraha bulshada Soomaalidu ay ku kulanto isla dhexmarayay inay guul taariikhiya tahay markii ugu horeysayna ay guul weyn gaadhay dowladda federaaliga ee Soomaaliya arrintan ayaa waxay imanaysaa kadib markii dhawaanahanba uu taagnaa muranka dhanka badda markii uu heshiis la galay maamulka Somaliland dowladda waddanka Itoobiya oo iyadoo ah waddan xiran oo bilaabada hase ahaatee in dhaweydba doonaysay badaha Soomaaliya inay wax ku yeelato xoog ama xeelad sidoo kal horeba sheegay oramka hogaamiyaha waddanka Itoobiya ee Abiy Ahmed hase ahaatee markay arrintani maanta soo baxday durbaba waxa wajigab ah kala kulmi doona oo aan soo dhaweyn kuna farxi doonin wadamada isu taga Imaaraadka Carabta Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Itoobiya iyo maamulka Somaliland dowladahan aan soo xusay ayaa waxay si wax ula wadeen Itoobiya iyo qotiga hogaamiyaha ee Abiy Ahmed wana kuwii ku dhaliyay inuu xeebaha Soomaaliya sheegto soona tababaray ciidamada badda Itoobiya maraakiibtana siiyay mid ka kaca iyadoo haba yaraatee ciidamada Itoobiyana iyo maraakiibtooda ay saniman doonaan xeebaha Soomaaliya maadaama ammaanka guud ay la wareegeen ciidamada qalabeysan ee xoogga Turkiga